In ka badan 2,000 oo qof oo Bilo Kooban Gudaheed ku qaatay diinta Islaamka. أشهد أن لا إله الله أكبر. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaalayaal sar aragtidaada ka dib shargare oo nagu soo biir si saaxiibo badan u gaaro muuqaalkan adna aad u rukumato muuqaalada maalinlaha ah mahadsanid in badan. Dadkan oo kala haystay diimo kala duwan isla markaana ku noolaa dalka isku tagga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada caasimadda u ah ee Dubai waxa ay Bilo Kooban Gudaheed ku qaateen diinta Islaamka markii ay arkeen isla markaana darseen diinta Islaamka oo ah diinta kaliya ee saxda ah ee dunidan. Xarunta faafinta dacwada Islaamka ee Dubai ayaa sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ama 6 bilood ee hore ay xaruntan diinta Islaamka ku qaateen 2,027 qof oo isugu jiray haween, rag iyo waayeelba kuwaas oo inta badan Imaaraadka Carabta u tagay arrimo ganacsi isla markaana diino kala duwan haystay. Dadkan 2,000 ka badan ayaa waxa ay diinta qaateen bishii Janaayo ilaa iyo bishii ina dhaaftay ee Juun, waana inta shahaadada loogu qabtay isla markaana ku islaamay xarunta arrimaha Islaamka iyo howlaha samafalka ee magaalada Dubai. Xaruntaas oo laga diiwaan geliyay balse waxaa la sheegay in tiro intaasi ka badan ay diinta Islaamka qaateen balse aan la diiwaan gelin meelo kala duwan oo magaalada Dubai ahna ay ku islaameen. Xarunta fidinta dacwada Islaamka ee Dubai ayaa waxay sheegtay in ay ku howlan yihiin fidinta diinta Islaamka, wacyigelinta dadka Islaamka ah iyo kuwa aan Islaamka ahayn, iyo sidii ay sawir wanaagsan uga bixi lahaayeen diinta Islaamka isla markaana dad aan Islaamka ahayn ay u jeclaysiin lahaayeen diinta Islaamka maadaama barabagaando iyo warar aan jirin iyo sidoo kale arrimo xag jir ah si qaldan looga faafiyay diinta Islaamka iyo dadka haystaba. Waxa ayna mas'uuliyiinta xaruntan sheegeen in ay soo dhaweyn heer sare ah u sameeyaan dadka diinta Islaamka qaata ee ah muslimiinta cusub. Waxayna mas'uuliyiinta xaruntan arrinkaasi ku dareen in hab ilbaxnimo ku dheehan tahay dadka ay u wacyigeliyaan iyagoo dhanka kale u samafala dadka muslimka ah iyo kuwa baahan ee aan muslimka ahayn si ay diinta Islaamka u jeclaysiiyaan. Waxayna sheegeen in ay qabtaan dood cilmiyeedyo isla markaana sanadihii la soo dhaafay kumanaan dad ah oo ay wacyigeliyeen ay diinta Islaamka qaateen iyagoo ku faraxsan hadalhayn badanna ay ka dhalatay waddankaasi iyo guud ahaan caalamka. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aadan muuqaalkan horey u saareen inaad like saarto na soo follow garayso. Mahadsanid mar kale.